ama waxaad doontid baa u qaadin kartaa. Waaya dhinaca isugu imanayaan waxaa rabaa inaan raadiyo hypotenuse-ka. Markaa gifinkaygaan qoranayaa. gifinkaygu bismillahi raxmaani raxiim. waxaa inoo socday casharkeennii ahaa chapterkeennii ahaa trigonometry. waxaynu soo qaadanay casharkii koowaad oo ahaa degree and radian. trigonometry baan marka ugu horeysa qoranayaa. marka waxaan sameynayaa wax yar baan iftiiminayaa insha allah. 3 xagal baan soo qaatay. dhinacaas waxaa la yiraahdaa waa xagal quman oo waxaa la yiraahdaa right angle oo waana 90 degree. dhinaca kalena xagashana waxaa la yiraahdaa acute angle oo waa xagal fiiqan waxayna ka yar tahay 90 degree. dhinaca kan kasoo horjeeda acute angle-kana waxaan oranayaa opposite. halka dhinaca ugu dheer ee aan oranayo hypotenuse oo ah shakaal. waayo right angle triangle marka aan haysto baan waxaa helayaa iyo acute angle baan helayaa. marka tusaale kale haddaynu soo qaadano waxay noqonaysaa 3 xagalkeennii horta inoo soo qaad, kadibna cartesian plane-ki igu dul sawir. markaan intaas sameeyo dhinaca jiifta waxaan oranayaa x axis, dhinaca taaganna waxaan oranayaa y axis. halka dhinaca ugu dheer ee shakaalka aan hadda calaamadinayo la yiraahdo r ama waxaad doontid baa u qaadin kartaa. waaya dhinaca isugu imanayaan waxaan oranayaa pointy x iyo y, barkulanada x iyo y baan oranayaa. hadda waa aniga idin calaamadinaya. sinku mar alaalaba wuxuu iigu xidhan yahay y-deeda buu iigu xidhan yahay, halka coskayguna uu iigu xidhan yahay wuxuu iigu xidhan yahay x-kayga. marka waxaan gelaynaa trigonometry functions. fansaaradii trigonometry-ga baynu bilaabaynaa. marka ugu horeysa waxaa jira horta 6 fansaar baa jira oo ah sin oo ah qalloocane, cosine oo ah dhamaystirka qalloocanaha, iyo tangent oo ah taabtaha, iyo cosecant oo ah rogaalka sinka, secant oo rogaalka coska ah, iyo cotangent oo ah rogaalka tangentiga oo taabtaha ah. sawirka isoo qaad. qaacidooyinkii oo dhan halkaas ay ugu xusan yihiin. marka hypotenuse waxaan oranayaa waa dhinaca ugu dheer mar allaalena wuxuu kasoo horjeedaa right angle-kaaga oo xagashaada 90 degree ah bay iniga soo horjeedsanaysaa. waa longest side of the right angle waxayna kasoo horjeedaa it always opposite, waxayna badanaa kasoo horjeedaa to the right angle xagashaada quman bay kasoo horjeedsanaysaa. opposite maxaan oranayaa marka? opposite-ka waxaan oranayaa xagashayda tiitada ah bay mar allaalaba iga soo horjeedsanaysaa, meel allaalaba ku taalle. adjacent-gana waxaan oranayaa tiitadayda bay dhinaca ka xigta. adjacent wax la yiraahdo the side next to the angle theta bay kasoo horjeedaa. laakiin hypotenuse badanaa maaha oo waxay labadaas ay igu dhaxaysaa. marka sinkayga waxaan ku helayaa opposite-kayga oo aan u qeybiya hypotenuse-kayga. coskaygana waxaan oranayaa waa adjacent-gayga oo aan u qeybiyey hypotenuse-kayga, halka tangent-guna yahay adjacent-ga oo aan u qeybiyey opposite-kayga. marka trick yar baa loo soo gaabsadaa oo ah soo ka iyo to. waa arkayna insha allah. tusaalayaashani waxaynu oranayaa trigonometry function-kii weeyaane hal iskaambul oo baynu si fiican u kala dhigdhigaynaa. waaya iisoo qaad 3 xagalka. dhinaca x axis-ka waxaan haystaa 5 ama adjacent-ga, opposite-kiisana waxaan haystaa 12. waxaan raadinayaa hypotenuse-ka. waxaa iga maqan hadda dhinac find missing side, dhinaca maqan raadi baa lagu yiri, waa ta calaamada casan ku saaray. marka intayna raadin before we can find, intayna raadin qiimaha saxda ah ee trigonometry-ga fansaarkii 6 ahaa sinka iyo coska iyo tanka iyo codka iyo intayna raadin waxayna u baahannahay
we need to find the length of dhinaca iga maqan xagasha iga maqan dhinaca iga maqan baan rabaa inaan raadiyo hypotenuse-ka. marka gifinkaygaan qoranayaa. gifinkaygu muxuu oranayaa x-ku wuxuu ila mid yahay 5 y-dayduna waxay la mid tahay 12. marka x-ta iyo y-da waxaa la mid ah x-ta waxaa la micno ah waa adjacent bay la micno tahay, y-duna waxay la micno tahay opposite waa dhinacaagii way ka soo jeedaa tiitada. r-tuna waxay kula la ekaanaysaa hypotenuse-kii oo waa dhinacii ugu dheeraa. waxaynu ku raadinaynaa wax la yiraahdo we can use waxaan isticmaalaynaa wax la yiraahdo Pythagoras theorem bay ka timid qaacidadaasi, oo hadba waxaa haysatid dhinaca ugu dheer baad laba jibaaraysaa, labada dhinac kale laba jibaaraysaa, waxaad samaynaysaa markaa qaacidadii rasmiga ah waa c square waxay la mid tahay a square plus b square. tan marka waa laga soo derive garay waa laga soo dheegtay qaacidadii rasmiga ah waa taas. marka solution xalkii baynu marka sameynaynaa, waynu soo sharaxnay waxaas, xalkii baynu sameynaynaa. xalka waxaynu sameynaynaa waynu ku bedbedelaynaa kaliyaad 5 baan isku weeray waxaan u geeyay 12 kaan isku weeray waa x iyo y-dii 25 iyo 144 way isu geeyay marka root-ka ka saaray waxay soo baxday 3. marka meelihii baan ku buuxsanayaa waa ka hypotenuse-ka wixii la mid yahay 3. marka hadda now we can find marka waxaan raadinaynaa hadeer 6 trigonometry baynu raadinaynaa functionkii oo ahaa sin iyo cos iyo tan. marka aynu raadino marka iyo rogaalkoodii oo ahaa secant, cosecant iyo cotangent baynu raadinaynaa. marka falaadha saa u kaxaysanayaa solution baan samaysanayaa 6 trigonometry ratio-dii. marka hore waxaan saddexda qiime ee saxda ah sin iyo cos iyo tan maan la soo kala baxaya. horeyna usoo baranay waxa lagu kala heli jiray way iska soo gaabsanaya. marka ii soo qor marka waxaan sameynayaa 12 oo opposite-kii ah waxaan u qaybinayaa hypotenuse-kii aan soo helay, coskii waa adjacent-kii iyo hypotenuse-kii aan soo helay oo 13 ahaa, tan-kana iska qoranaya waa 12 meesha ugu yar waa 12 aan u qaybiyay 5 opposite-kii iyo adjacent-kii aan soo qaybiyay. marka kuwanina waa rogaalkooda waa cosecant waa sin-ka rogaalkiisa, secta waa coska rogaalkiisa, cotangent-guna waa tangent-ga rogaalkiisa. marka 12 iyo 13 waa iska hormarinaysaa kaliyaad wax kale samayn maysid. wabillahi tawfiiq. marka intaasaynu ku joojinaynaa.